inkastoo caawa ay soo yar baxday odayga awoogay Axmed Cali nin weyn oo sportska balaa ku aqaanay inaanu buulka waxba igu dhaamin iyo PlayStation-ka labada wixii sports la yiraahdo waxaan haystaa Axmed Cali inuu bilaabo dhameeyade fikirkan inuu haystay marka kaniga ku dhadaniya ay gasho waxaan odayga iska wada baran kartaano wax badan bay isma dheeridin بالك ما أنت نيرت تورنا إن شاء الله وكبر أنتنا ماشى كده بيا بسم الله أكبر غير غلط وكفتن عويسية فرحد ودتشرو لوجوده فريهوي عياره ماتش جيم صانع وهبينكي حلي هاس رسمي حرقة لوجا شري مجرد هرجيسة جاران حافظة تشجير عجارك جرين بلاسا عم برواقة فول ستيشن مهرد نص عصري اللوجا لبيل لجنه لا يدمن بقي بها كلا دوان عيارها أيوها مناسبة يفرتان كقيب قال يحبنا كلا دوان ويكمل هاينا قدوم يلا جاسمي السياسيين أقوياء عيارتي كلا دوان وكلا سعودي بهذا عياره سمع لنا مسؤولين يمرتشرف كرو تراب بدن munaasabadii furitaanka ayaa ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay oo soo dhaweynta martida kadib ku nuxnuxsaday muhiimadda ay munaasabadan leedahay iyo marxaladii ay soo martay hirgelinta meheradani ciyaartay guulad alfis mulkiilaha meherada Magic Game Zone Faarax Sheekh Cabdirashiid Cabdilaahi iyo Cabdikariin Axmed Muuse gudoomiyaha dalada ciyaaraha waayaraga waxaanu caawa xiriirkarjarkii joognaa Magic Game waxaan leenahay ilaahay meherada Faarax Cabdirashiid Allah barakeeyo waxaa jooga agaasimi guud ciyaaraha agaasimi quality controlka lijan hore hayba good hore waa kabtankii gobolka Hawd iyo kabtankii kooxda Goodir waxaan leeyahay ku soo dhawaada insha Allah waxa farxad weyn yahay inaan ka soo qayb galo anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha dalada waaye arag inaan ka soo qayb galo meherada cusub ee ku soo korodhay businessyadii Jamhuuriyadda Soomaaliland Magic Sports oo ah meel gameka iyo loogu talagalay iyo sportskii ciyaaraha aad iyo aad ayaan meherada u baarigaynaa waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo waa meherad loo baahnaa oo xilligeedii timid waxaan leeyahay markaa dhalinyarada hawdayma la'aanina geestada waxa iyaguna madasha ka hadlay Axmed Cali agaasimaha guud ee hay'adda dhawrista tayada Soomaaliland iyo Cabdiqani Jire agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland kuwaas oo si rasmi ah u furay meherada waxaana ay ku dheeraadeen sida ay lama huraan u tahay in bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada Hargeysa ay helaan goobo noocan oo kala waxaan joognaa madal ganacsi oo maanta halkan laga furayo oo dhowr wajiba leh dhinac waa meherad ganacsi oo cusub dhinac waa meherad dhalinyaro dhinac waa meherad sports marka mulkiilaha madasha maanta furtay waa markii uu ducaynayna oo ugu mahadnaqayna waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu ilaahay businesskiisa uga dhigo mid khayr badan oo wuxuu ka filay wax ka badan ba ilaahay ka siiyo mar labaadka meheradu waa meherad dhalinyaro iyo meherad waayar buu isugu jirtaayo dawaa caweyska dadku markay shaqooyinkooda ama waqtigooda firaaqada helaan geemamkii baa ku yaala buulkii baa ku yaala oo qaar VIP iyo qaar dadka dhan wada ciyaari karaan bay isugu jira marka bulshadana waa ugu baaqaynaa waxaan leenahay ka soo qayb gala oo walaalkeenu camara waqtiga iyo kharashka uu galiyay anaguna insha Allah macmiisha ayaan ka mid noqon doonaa aniga agaasimaha dhamuulinta kale meesha joogtaaba oo baalka maanta yar turturna insha Allah ku baran doonaa meesha ka dambeeya marka oo ma hadnaqana saaxiibkay runtii caawa waxaanu furaynaa meherada Magic oo runtii ah meherad fiican oo xilligeedii loo baahnaa timi oo arrimaha dhalinyarada iyo sportka iyo madadaalinta runtii qayb weyn ka qaadanaysa caasimadda gaar ahaan areadan ay ka furan tahay iyadoo caasimadda dhan kale ay soo gaari karto hadda transportationkii iyo gaadiidkii iyo si socodka magaalada aad u fiican yahay inta dabadeed aad baan ugu mahadcelinayaa mulkiilaha meherada businesskan quruxda badan uu sameeyay dhowr meelood buu taabanaya mar waa meherad soo korodhay oo manfaceed iyo irsiqeeda dadka ka shaqeeya ay yeelanayaan kuwa ku ciyaara iyo kuwa yimaadaana ay madadaaliyo wanaag ka helayaan ka guriga iska leh ama meherada iska leh uu kala wanaagsan ka helayo dawladda hoose iyo dawladuna ay cashuur ka helayaan marka nuxurka ugu weyn ee caawa halkan waxa weeye in dhalinyaradeenii runtii ay kaga jeesan doonaan balwadaha madadaalada iyo waxa la midka ah runtii annana waa soo camiri doonaa sida Axmed Cali sheegay inkastoo caawa ay soo yar baxday odayga awoogay Axmed Cali nin weyn oo sportska balaa ku aqaanay inaanu buulka waxba igu dhaamin iyo PlayStation-ka labada wixii sports la yiraahdo waxaan haystaa Axmed Cali inuu bilaabo dhameeyade
وفكركان أنا هيستي marka waxaan ogaaday awogay inuu san PlayStation iyo buulka aan wax badan igu dhaay makaaniga ku dhadan ay gasho waxaan soodaga iska wada baran kartaano wax badan isma dheeridin xagga buulka iyo PlayStation-ka xagga kale kale waa oday weyn oo kubadda cagta iyo sportska dalka tacab badan galiyay odayna uga ah guuleedii baan la kaftamay hadda waxaan ku warday habeenkii hawlahan oo dhan Axmed Cali baa igu mataleen maxaa Cali ugu yeedhay weyday keede marka intaasaan ku kaftanay waxaan uga jeeday runtii waa dhiijiga igu dhow dhiijiyada waayo shaqadan anagu hayna maaha administration kaliya maaha siyaasad kaliya waa fiil sida caafimaadku fiil u yahay injineerka iyo dhismuhu fiil u yahay saxaafaddu fiil u tahay sportskuna waa fiil marka waxaan ku soo oranayaa meherada waynu baarigaynaa waa u ducaynaynaa